Israa'iil oo weerarkii ugu cuslaa ku qaaday Iiraan oo jawaab degdeg ah bixisay dagaalkii saddexaad ee adduunka oo qarka loo saaran yahay iyo dab lagu cayaaraya haatan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqata nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena sharafta badan haddii aad horay noola joogtayna like-ta iyo share-ta waa inoo muhiim aad baa u mahadsantihiin yahuudda ayaa saakay qaaday weerar ay naawilaysay in ka badan 35 sano in ay ku qaado Iiraan weerarkani ayaa sida ay sheegteen waxay ku bartilmaameedsadeen xarumaha nuclear-ka ee Iiraan sidoo kale waxaa la soo tabinayaa in dad badan oo saraakiil ah oo magac iyo maamuus ku dhax lahaa Iiraan ay howlgalka ku dhinteen saynis yahano iyo saraakiil kamid ah xukuumadda Tehran Iiraan ayaa jawaab degdeg ah ka bixisay ayadoo in ka badan 100 diyaaradood ku soo weerartay Israa'iil garoonka ugu weyn Israa'iil ee ku yaala Tel Aviv ayaa dhammaan diyaaradaha laga daadgureeyay xaalkana waxa uu marayaa halkii ugu adkayd Mareykanka oo munaafiqnimadiisa la soo baxayna waxa uu sheegay in duqeymaha ay yahuudda fulisay uusan isaga wax lug ah uusan ku lahayn Iiraan waxa ay sheegtay weerarada ay haatan qaaday in aysan ahayn jawaab laakiin jawaab ay bixin doonaan Iiraan jawaabaha ay bixin doonta maxay noqon doonaan Israa'iil se weeraradeeda ay sii wado sidee ahaanayaan dagaalka labadane oo ku dhawaad 40 sano soo guuxayay miyuu qarxi doonaa oo halkii ugu dambeysay iyo in nuclear la isu adeegsado miyuu noqon doonaa mise waa la kala dhaxgali doonaa xaaladdu maxay noqon doontaa yahuudda iyo xulifadeeda uu Mareykanka hogaamiyo waxa ay aaminsan yihiin inaan marnaba la aqbali karin awood aanan ahayn Israa'iil in ay ka jirto bariga dhexe waana sababta lagula dagaalamaya Iiraan arrinkani waxay ku tahay xaniya taabad iyo dhibaato haddii xarumaheedii muhiimka ah ee nuclear-ka la bartilmaameedsaday oo la ogaaday oo la dhaxgalay haddii saraakiisheedii iyo saynis yahanadii nuclear-ka laga laayay qaar kamid ah ayaduna waxay ku tahay boo kale oo aad u damqanaysa Iiraan waxa ay ku qasban tahay in ay ka bixiso jawaab cad taa oo ay dunida arki karayaan Netanyahu iyo kooxdiisana waxa ay aaminsan yihiin dagaalkani inuu yahay kii ugu dambeeyay oo bariga dhexe lagu kala adkaada xaaladuna ay gaarto halkii ugu adkayd haddaba Israa'iil waxa ay isku haleynayso oo garab taagan waa quwadda Mareykanka iyo kuwa kale ee ku daba faylsan Iiraan yaa garab u ah oo garab taagan diyaaradaha ay adeegsata inta badan waxa sameeya Russia oo Ruushka ayaa dhankeeda jira inkastoo Ruushka qudhiisu uu dagaal ku jira oo waxa weeye qaabka la doonayo uusan u garab istaagi kareynin Iiraan labadan dal oo haysta hubka wax gumaada ee nuclear-ka sidoo kale cudud ciidan oo awood la haysta diyaaradaha dagaalkana haysta ayaa haatan xaaladoodu waxa ay maraysaa baraka male Iiraanna kooxihii ay dhisatay ee garabka u ahaa xuutiinta unbaa maanta ka dhaqaaqaya nimankii Xisbullah ahaa madaxdoodii iyo labeyntoodii iyo awoodoodii yahuudda ayaa baabi'isoo eber ka dhigtay marka Iiraan waxa ay ku qasban tahay in ayadu nafsad ahaan ay isu difaacdo haddaba dhaawacani iyo weerarkani iyo dhibaatadani Iiraan loo geystay haddii jawaab cad oo dunida dhan waxa weeye ay la amakaagta ay ka bixin weyso Iiraan waxay noqonaysaa fando faarsahansan arrinkaasna ayaday dhibaato ku noqonaysaa laakiin haddii ay ka bixiso jawaab la yaab leh oo dunida waxa weeye dhagaha faraha gashato waxa imaanaysa in la yiraahdo intaan ka badan nuclear ha isu adeegsanina waxa weeye adduunka gubine waxa weeye bal kala istaaga ama kala jooga ama raggu in ay kala gaabsadaan Soomaalidu waxay tiraahdaa rag idaa kuguma daayee aynu isdayna ayuu kugu daayaa haddii qofku aad iska celiso oo wixii isaga uu kugu dhuftay wax la mid ah ama ka badan aad ku dhufato waxa weeye naftiisa ayuu u cabsanayaa
laakiin waxa weeye haddii dhibaatadii uu kuu geystay mid ka jilicsan uu kaa dareemo waxaa suuragal ah mid hor leh oo tii hore ka dhibaato badan oo ka xanuun badan oo ka qallifsan inuu kuu geysto. sidaa darteed Iiraan waxa ay ku qasban tahay in ay jawaab la yaab leh ka bixisa arrinkani, inkastoo already ay boqolaal diyaaradood in ka badan ay ku soo weerartay oo waxa weeye ay duqeymo geysatay. haddana waxa weeye meelaha muhiimka ee laga taabtay meelo la mid ah in ay taabato ayaa muhiim ah. Israa'iil oo weerarkii ugu cuslaa ku qaaday Iiraan iyo Iiraan oo jawaab degdeg ah bixisay. dagaalkii saddexaad ee adduunka oo qarka loo saaran yahay iyo dab lagu cayaaraya haatan. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqata nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena sharafta badan. haddii aad horay noola joogtayna like-ta iyo share-ta waa inoo muhiim. aad baa u mahadsantihiin. Yahuudda ayaa saakay qaaday weerar ay naawilaysay in ka badan 35 sano in ay ku qaado Iiraan. weerarkani ayaa sida ay sheegteen waxay ku bartilmaameedsadeen xarumaha nukleerka ee Iiraan. sidoo kale waxaa la soo tabinayaa in dad badan oo saraakiil ah oo magac iyo maamuus ku dhax lahaa Iiraan ay howlgalka ku dhinteen, saynis yahano iyo saraakiil ka mid ah xukuumadda Tahraan. Iiraan ayaa jawaab degdeg ah ka bixisay ayadoo in ka badan 100 diyaaradood ku soo weerartay Israa'iil. garoonka ugu weyn Israa'iil ee ku yaala Tel Aviv ayaa dhammaan diyaaradaha laga daadgureeyay. xaalkana waxa uu marayaa halkii ugu adkayd. Mareykanka oo munaafiqnimadiisa la soo baxayna waxa uu sheegay in duqeymaha ay Yahuudda fulisay uusan isaga wax lug ah uusan ku lahayn. Iiraan waxa ay sheegtay weerarada ay haatan qaaday in aysan ahayn jawaab, laakiin jawaab ay bixin doonaan. Iiraan jawaabaha ay bixin doonta maxay noqon doonaan? Israa'iil se weeraradeeda ay sii wado siday ahaanayaan? dagaalka labadane oo ku dhawaad 40 sano soo guuxayay miyuu qarxi doonaa oo halkii ugu dambeysay iyo in nuclear la isu adeegsado miyuu noqon doonaa mise waa la kala dhaxgali doonaa? xaaladdu maxay noqon doontaa? Yahuudda iyo xulifadeeda uu Mareykanka hogaamiyo waxa ay aaminsan yihiin inaan marnaba la aqbali karin awood aanan ahayn Israa'iil in ay ka jirto bariga dhexe, waana sababta lagula dagaalamaya Iiraan. arrinkani waxay ku tahay xaniyataabad iyo dhibaato. haddii xarumaheedii muhiimka ah ee nuclearka la bartilmaameedsaday oo la ogaaday oo la dhaxgalay, haddii saraakiisheedii iyo saynis yahanadii nuclearka laga laayay qaar ka mid ah, ayaduna waxay ku tahay boo kale oo aad u damqanaysa. Iiraan waxa ay ku qasban tahay in ay ka bixiso jawaab cad taa oo ay dunida arki karayaan. Netanyahu iyo kooxdiisana waxa ay aaminsan yihiin dagaalkani inuu yahay kii ugu dambeeyay oo bariga dhexe lagu kala adkaada, xaaladuna ay gaarto halkii ugu adkayd. haddaba Israa'iil waxa ay isku haleynayso oo garab taagan waa quwadda Mareykanka iyo kuwa kale ee ku daba faylsan. Iiraan yaa garab u ah oo garab taagan. diyaaradaha ay adeegsata inta badan waxaa sameeya Russia oo Ruushka ayaa dhankeeda jira, inkastoo Ruushka qudhiisu uu dagaal ku jira oo waxa weeye qaabka la doonayo uusan u garab istaagi kareynin Iiraan. labadan dal oo haysta hubka wax gumaada ee nuclearka, sidoo kale cudud ciidan oo awood leh haysta, diyaaradaha dagaalkana haysta, ayaa haatan xaaladoodu waxa ay maraysaa baraka male. Iiraanna kooxihii ay dhisatay ee garabka u ahaa xuutiinta unbaa maanta ka dhaqaaqaya. nimankii Xisbullah ahaa madaxdoodii iyo labeyntoodii iyo awoodoodii Yahuudda ayaa baabi'iso eber ka dhigtay. marka Iiraan waxa ay ku qasban tahay in ayadu nafsad ahaan ay isu difaacdo. haddaba dhaawacani iyo weerarkani iyo dhibaatadani Iiraan loo geystay, haddii jawaab cad oo dunida dhan waxa weeye ay la amakaagta ay ka bixin weyso, Iiraan waxay noqonaysaa
faan doofaar sahansan arrinkaasna ayaday dhibaato ku noqonaysaa. laakiin haddii ay ka bixiso jawaab la yaab leh oo dunidu waxa weeye ay dhagaha faraha gashato, waxaa imaanaysa in la yiraahdo intaan ka badan nuclear ha isu adeegsanina, waxa weeye adduunka gubine, waxa weeye bal kala istaaga ama kala jooga amaba raggu in ay kala gaabsadaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa rag idaa kuguma daayee aynu isdayna ayuu kugu daayaa. haddii qofku aad iska celiso oo wixii isaga uu kugu dhuftay wax la mid ah ama ka badan aad ku dhufato, waxa weeye naftiisa ayuu u cabsanayaa. laakiin waxa weeye haddii dhibaatadii uu kuu geystay mid ka jilicsan uu kaa dareemo, waxa suuragal ah mid hor leh oo tii hore ka dhibaato badan oo ka xanuun badan oo ka qalifsan inuu kuu geysto. sidaa darteed Iiraan waxa ay ku qasban tahay in ay jawaab la yaab leh ka bixisa arrinkani, inkastoo already ay boqolaal diyaaradood in ka badan ay ku soo weerartay oo waxa weeye ay duqeymo geysatay. haddana waxa weeye meelaha muhiimka ee laga taabtay meelo la mid ah in ay taabato ayaa muhiim ah.